Waadin salaam dhammaan akhyaarta meel walba joogtiin. Waxaan rabaa inaan idin tuso sida Google Meet loo isticmaalo, siiba sida meeting cusub loo sameeyo. Marka hore waxaan tegaynaa applicationada Google-ka, kadib waxaan ka dooranaynaa Meet. Haddii aad rabtid inaad meeting cusub sameysid, waxaad taabanaya New Meeting, kadibna 3 waddo oo meeting cusub lagu sameeyo aad kusoo baxayso. Waddada koowaad Create a Meeting for Later. Markaa ku dhufatid link ahaan oo kuu siinaa. linkigan inaa hadda hore ka bilaabid waajib maahan, saacado kadib waa geli kartaa. linkigana waxaa u diray dadka u baahanta inay kasoo qayb galaan meetingka. Waddada labaad meeting cusub ku sameyn kartid waxaa waaye Start an Instant Meeting oo hadda bilaabanayo. iyo waddada saddexaad oo Schedule in Google Calendar. waxaa ku programmi kartaa Google Calendar isbuuc kadib ama bil kadib ama maalmo kadib. markii waqtigaas la gaarin oo kuu sheegaa sidaas ku bilaabi kartaa. hadda waxaa u baahannahay inaan dhahno Start an Instant Meeting. markaa geshid wuxuu ku dhahaa linkii waxaa u dirtaa dadka u baahanta inay kasoo qayb galaan. waa koobiyeyna kadib waxaa u diree